kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada idil ahaantiinba waxaan rabaa inaan idin la wadaago ama idinka dabageeyo xogtii wararka ugu dambeeyay dagaal culus oo maanta ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Shabeelle gaar ahaan degmada Aadan Yabaal. Degmada Aadan Yabaal shalay galinkii hore waxaa weerar gaadma oo qaraxyo ku bilowday ku soo qaaday dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab waxayna Al-Shabaab guud ahaanba la wareeyeen gacan ku haynta degmada Aadan Yabaal. balse gacan ku haynta degmada Aadan Yabaal Al-Shabaab markii la wareeyeen kadib xalay halkaas waxaa ka dhacay duqeymo culus oo ka furiyeen diyaaradaha dagaalka Mareykanka uu leeyahay waxaana halkaasi xalay duqeymadaasi Mareykanka ay ku dileen horjoogyaal ka tirsanaa iyo maleeshiyad kooxda daacad u ahaa. sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saakay dib isu abaabulay oo weerar culus ku qaaday degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelle dhexe. dagaalkan waxaana hogaaminayay taliyaha ciidamada qalabka sida Jenaraal Odawa Yuusuf Raage iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shoote. dagaalka ilaa hadda waa uu socdaa ilaa hadda degmada Aadan Yabaal Al-Shabaab waa laga saarlaayay balse ciidanka ayaa muujinaya dhawr adeeg iyo far adeeg oo halkaas inay kula wareegaan ay rabaan. sidoo kale degmada Aadan Yabaal waxay ahayd fariisintii ugu weyneed ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku lahaayeen qaybo ka tirsan gobolka Shabeelle dhexe waxayna Aadan Yabaal si qaas ah u ahayd fariisintii ugu weyn ee laga awaabulo weerarada iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. balse ugu dambeyn Al-Shabaab ayaa halkaasi weerar afar jiha inta kusoo qaadeen ay la wareegeen. la wareegitaanka degmada Aadan Yabaal ee Al-Shabaab ayaa imaanaya kadib markii dagaalyahanada maalmihii lasoo dhaafay ay ku hoolanayeen in dagaalyahanada ka jooga qaybo ka tirsan gobolada Bay iyo Bakool ee Al-Shabaab isugu keenaan qaybo ka tirsan gobolka Shabeelle dhexe maadaama halkaas oo kooxda kaga socdo guluf cusub oo laga soo horjeedo lana rabo in looga saaro qaybaha ay kaga soo yihiin gobolka Shabeelle dhexe. si lamid ah kooxda wuxuu dagaal sidaan oo kale ugu furnaa gobolka Hiiraan deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan oo lagu magacaabo Awoore oo 8 maalmood xiriir ah weerar culus oo u dhaxeeyay kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kooxda Al-Shabaab uu ka socday. balse ugu dambeyn ciidanka ayaa xalay deegaanka Awoore soo faarujiyay kadib markii ay ka war heleen in Al-Shabaab ay guud ahaanba la wareegeen degmada Aadan Yabaal. sidoo kale dagaalka 8 maalmood socday oo u dhaxeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Al-Shabaab ee ka socday deegaanka Awoore ayaa waxa uu muujinayaa fariin kareeta sababtoo ah deegaanka Awoore Al-Shabaab 8 maalmood oo xiriir ay ku soo laabanayeen balse degmada Aadan Yabaal oo ka tirsan gobolka Shabeelle Al-Shabaab hal maalin ay soo weerartay isla saacado gudahoodana way kula wareegeen gacan ku haynta degmada Aadan Yabaal oo ahayd fariisan dhan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliskooda guud u joogay lagana abaabuli jiray dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. fariinta ay muujinaysa ayaa ah in beesha degta qaybo ka tirsan gobolka Shabeelle gaar ahaan degmada Aadan Yabaal iyo masaajida Al-Guduud ay dagaalka ku fashilan yihiin iyagoona u muuqda in dagaalka Al-Shabaab aysan taag u haynin. balse gobolka Hiiraan beesha degta ayaa u muuqata in far adeeg ay ku muujinayaan bacdaba markii horeba dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab in uu bilaawdo sabab ay u ahaayeen taas oo ugu dambeyn dowladda federaalka Soomaaliya idan ay kula daaratay dagaalka Al-Shabaabna ay qayb kala noqotay taas oo Al-Shabaab hadda looga saaray deegaano iyo degmooyin badan oo dhaca qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan iyo Shabeelle dhexe. guud ahaanba dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab weli waa uu soconayaa waxaana uu marayaa marxaladii ugu dambeeyay inkastoo maalmihii lasoo dhaafay Al-Shabaab ay xoojiyeen weerarada gaadmada iyagana ay kusoo qaadayaan fariismaha ciidamada ay ku leeyihiin qaybo ka tirsan gobolada Shabeelle dhexe iyo Hiiraanba oo shalay ugu dambeysay in Al-Shabaab ay la wareegeen gacan ku haynta degmada Aadan Yabaal. ugu dambeyn degmada Aadan Yabaal xalay duqeymo ayaa ka dhacay saakina dagaal culus ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay kula qaadeen dagaalka ayaa hadda ilaa hadda socda waxaana laga wardhoorayaa wixii warar ka soo kordha dagaalka halkaasi ka socda iyo gacan ku haynta degmada Aadan Yabaal cidda u dambeyn doontaba. haddii inta soo gaarto waxaan ka codsanaynaa subscribe ila channelka like ii saarto si aan u helno saaxiibada oo kaleeta kana mid noqon saaxiibadeena 2000 subscribe aad iyo aad u mahadsantahay.